wax fiirsigu waa furaha nolosho furdaamiye weeye shay falkiye ha fiigina faylka taas gasho oo fadhiiso fikir falkaaga hortii السلام عليكم دمانتين عاوة waxaynu ka hadli doonaa mowduuc aynu ula baxnay muhiimadda ay leedahay fiirsigu in badan baynu maqalnay ama nolol maalmeedkeena ay ku jirtaa iyadoo la leeyahay war waxa ka fiirso war waxa intaanad samayn eeg war intaanad falin ka hor fiirso war ma garanaysaa fiirso ereyga fiirso waxa laga yaabaa inuu in badan nolol maalmeedkeena ku jiro adigu aad isticmaashay adiga lagu adeegsaday in badan fiirsiga aan ka hadlayaa ereygii ugu dhawaa ee aan qaadan karay baa fiirsi ii noqday laakiin mafhuumka ama conceptka aan doonaya inaan ka hadlaa waa fiirsiga oo caawa qoto dheer fiirsigaas oo qoto dheer weeyaan waxaan doonayaa inuu xoog fiirsigaasi u qoto dheeraado si uu ula micno noqdo ereyga afka qalaad ama ingiriisiga ah ee focuska la yidhaahdo haddii kolkaa aynu u dhadhaweyno oo aynu nidhaahno ereyga focus waxa la micno ah fiirsi taasoo weliba markaan fiirsiga sii adkeeyo aan odhan karayo waa fiirsi dhaygag oo kale focus waa fiirsi dhaygag oo kale haddii aynu taasi ku turjunno kamaradaha waxa la yidhaahda ee wax lagu duubo ayaa badankaa waxay leeyihiin waxa la yidhahdaa autofocus oo ah qof tusaale ahaan geed bay rabtaa kamaradaas ama geed baa la rabaa in kamarad lagu sawiro ama kamarad lagu duubo dabadeed geedkaas oo qura lagu qabanaya inta kale dareemada ka ag baxaysa iyo cirka iyo geedaha ka garab baxaya waxa laga yaabaa in shucaac la geliyo laakiin waxa diiradda la saarayaa oo lagu bineeninayaa oo qura geedka dabadeed geedkaasaad si waadix u arkaysaa caleemihiisa iyo laamihiisa iyo jiridiisa waxa la yidhaahdaa kolka haddaba maskaxda ibni aadamku waxay leedahay iyaguna astaantaas oo kale leedahay oo focus bay wax saari karaysaa oo tusaale ahaan qof wax jeclaatay baa garan karaya haddii aad qol soo gasho oo qolkaa ay dad badan ku jiraan laakiin qofaad adigu jeceshahay uu ku dhex jiro waxaa laga yaabaa in focuska aad saarto inaad diiradda saarto ama aad u fiirsato oo aad ku fiirsi dhaygagto oo aad qofkaa ku qalasho baa laga yaabaa marka ugu horeysa inaynu ka hadalno waa maxay muhiimadda ay leedahay waa maxay faa'iidada ay leedahay inaad wax u fiirsataa inaad wax ku fiirsi dhaygagtaa waa maxay faa'iidada ay leedahay faa'iidada koobaad ee ay leedahay aynu yara qaadaa dhigno faa'iidada koobaad ay leedahay waxa weeyaan shayga aad u fiirsatay daalacantiisa iyo ma garanaysaa tadadan iyo tadaalacanba waad ogaanaysaa shayga aad u fiirsatay waad ka lib keenaysaa shayga aad u fiirsatay guda iyo dibadba waad ogaanaysaa haddii uu tusaale ahaan imtixaan ahaa aynu tusaale usoo qaadana inuu shaygaasi imtixaan ahaa waxaa laga yaabaa inaad xog badan haysay wax badan soo akhriday aad xariif tahay maadadan ama shaygan lagaa qaadayo aad xariif ugu tahay laakiin umaad fiirsi dhaygagin su-aalihii lagu weydiinayay oo waxaa laga yaabaa iyadoo shaygaa ka jawaab lagu yidhi inaad wax kale ka jawaabtay wixii waad garanaysaa laakiin umaad fiirsan wixii lagu weydiiyey taasi maxay keenaysaa adigoo shaygii xariif ku ah adigoo shaygii og adigoo xogtii haya baad marin habowday baanad u fiirsan wixii lagaa doonayay dabadeed si kasta ood xariif u tahay si kasta ood shaygaa u og tahay lagama yaabo inaad ka lib keento lagama yaabo inaad maxsuul 100% keento lagamana yaabo inaad shaygaa kasoo bidhaanto oo aad kasoo dhalaasho haddaba sidaasoo kale shay kasta ood gacanta u qaado hadday shaqo tahay hadday xidhiidh adiga iyo qof idinka dhexeeyo tahay haddii ay naftaada tahay marka aad shaygaa u fiirsato ee aad shaygaa u fiirsi dhaygagto ee aad shaygaa ugu fiirsato ee aad ku focus gariso diiradda aad saarto waxaad keenaysaa ama aad noqonaysaa waxa afka carabiga itqaanka lagu yiraahdo shaygaa si dhaba ayaad uga lib keenaysaa si dhaba oo aan loogu noqonayn ayaad ka lib keenaysaa marka nolosheena aragto waxaad arkaysaa qof baa kaba kuu tulaya qof baa surwaal kuu tulaya qof baa shaqo kale kuu qabanaya dabadeed shaygii waxaad arkaysaa qofkiiyo si yaroo daganoo yacyacooda si yaroo meel dhexaad uu kuugu shaqaynaya dabadeed shaqadii uu lacagta ku qaadanayay kullaybana waqtigii kaga baxaysay shaqadii kullayba waqtigii kaga dhacay ee uu lacagta ku qaadanayay ee awoodii ay kaga luntay ee ma garanaysaa uu kullayba ku fooganaa
baanu u fiirsanayn shaygii baanu u fiirsanayn dabeed maxaa dhacaysa inuu shaygii 100% noqdo inaad shaygii ama shaqadii lagu diray ay 100% noqoto aynu nolosheena barno sida wax loogu fiirsado aynu nolosheena barno sida wax loogu dhaygago ee wax loogala soo dhex baxo wax ka weyn ujeedo ka weyn macna ka weyn mucjiso ka weyn intan la arkayo ee ay ishu arkayso inta wax ka badan aynu nolosheena kala soo baxno aynu dadka inagu hareeraysan kala soo dhex baxno aynu dabeecadda iyo nature-ka inagu hareeraysan wax ka weyn inta aynu kala soo dhex baxno waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka ereyadii aynu markii hore ku bilownay ee ka mid ka ahaayeen wax fiirsigu waa furaha nolosho wax fiirsigu waa furaha nolosho furdaamiye weeye shay falkiye hafiigine faylka taas gasho oo fadhiiso fikir falkaaga hortii